kadib markii uu dhawaan dalka Malaysia ku dhintay Allah u naxariistay xogayihii dawladda hoose ee degmada Buurtile Cabdiwali Cali Faarax waxa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta dawladda Puntland ay degmada u soo magacawday xogaye cusub waxaana xarunta dawladda hoose ee degmada Buurtile lagu qabtay munaasabad uu xilka kula wareegayo xogayaha cusub ee degmada Buurtile Jaamac Cabdiraxmaan Abshir iyadoo ay munaasabada xil wareejinta goobjoog ahaayeen isuduwaha dawladaha hoose ee gobolka Nugaal gudoomiye ku xigeenka degmada xisaabiyaha ahna ku simaha xogayaha iyo dhammaan shaqaalaha dawladda hoose ee degmada Buurtile Maxamed Hayaan Geele gudoomiye ku xigeenka degmada Buurtile iyo isuduwaha dawladaha hoose ee gobolka Nugaal Ciise ayaa la dardaarmay xogayaha cusub ee degmada Buurtile maanta ay taariikhdu tahay 1 July waxaanu loo kala wareejinayaa xogayaha cusub waxaan xilka loo kala wareejinayaa xogayaha cusub iyo siihayihii xilka xogayaha ahna xisaabiyaha waxaan u kala wareejinayaa hadii aan la eedmo isuduwaha gobolka Nugaal si rasmi ah xil wareejintii xogayaha dawladda hoose ee degmada Buurtile ula wareegay Master Jaamac Cabdiraxmaan Abshir oo dhawaan wasaaradda arrimaha gudaha ay xogayaha dawladda hoose u soo magacawday xogayihii hore ee degmadu Allah u naxariisto Cabdiwali waa uu dhintay xilkii waxa kala wareegnay oo xilka wareejinta siihayihii oo ah xisaabiyihii degmada Buurtile xogayaha dawladda hoose degmada Buurtile oo cusub Master Jaamac waxaan kula dardaarmayaa inaad aqoon u leedahay meeshii cashuur ka jirto meeshii hadii cashuuraha hadba mid baa furan mar dhulka furan mar shutuuda furan mar xoolaha baa furan waa ina shaqadii aad garanaysaa aqoon u leedahay qodobka labaad waa inaad awood u leedahay dadka cashuurta ku weydiisid waa inaad awood u leedahay dadka cashuurta inaad ka qaadid weydiisid qodobka saddexaadna waa in amaano aad leedahay lagu yimaado wixii aad dadweynaha ka qaatay waa in lagu yimaado saddexda qodob hadii laga helo hawshaadu si caadiya oo fiican oo qurux badan bay u soconaysaa gudiga fulinta waxaan kula dardaarmayaa shirkastoo la isugu yimaado hadalka ugu horeeya kan labaad waa inaad ku boorisaan dadka cashuurta in la bixiyo wacyigelin baa laydinka rabaa xogaye ma shaqayn karayo hadii aan ayan la shaqayn gudiyada fulinta gudiga amniga gudiga horumarinta intaas oo dhan hadayaan la shaqaynayn oo dadka loo wacyigelinayn oo dadka cashuurta la bixiyo ayan oran wax shaqo ah oo xogaye kaliya keeni karayo ma jirto dhinaca kale xogayaha cusub ee dawladda hoose ee degmada Buurtile Jaamac Cabdiraxmaan Abshir ayaa shacabka ka codsaday in loo duceeyo lana shaqeeyo waxa uu ballan qaaday inuu si hufan u gudan doono waajibaadkiisa shaqo ee maanta loo idmay waxaan marka koowaad ka codsanayaa bulshada iyo umarada ka soo qayb gashay xil wareejintan in ay Allah subhanahu wa ta'ala iga baryaan in Ilaahay xilkan igu asturo ina fududeeyo haddaan icaana Ilaahay la helin waxba lama qaban karo insaanku waa daciif laakiin wuxuu ku shaqeeyaa iraadada Ilaahay waxaan si shakhs maantay anigu hortiina ka ballan qaadayaa reer Buurtile ahaan iyo maamul ahaanba inaan si daacad ugu shaqeeyo bulshada kiciyo qaybaha kala duwan ee cashuuraha sameeyana xisaab celin ka qayb qaato qaybaha bulshada nadaafada waxbarashada amniga dawladda ma shaqeyso dakhli la'aan xoghayana ma shaqeeyo kicinta cashuuraadka la'aanto reer Buurtile anigoo uga faa'iideysanaya munaasabada xil wareegida waxaan ka codsanayaa in ay u diyaar garoobaan inay bixiyaan cashuuraadka sidoo kale in u diyaar garoobaan inay lagu la xisaabtamaan waxa ay noo dhiibteen guuleysatid Jaamac warbaahinta dawladda Puntland magaalada Buurtile